waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan booqashada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku joogo magaalada adis ababa ee caasimadda dalka etoobiya. haddana kama marna in madaxweynuhu kaalmo la xiriira arrimahaas dagaalada inuu ka raadinayo mataqaanaa dalka hadda uu jooga iyo kuwa kale uu booqan doonaba maalmaha soo socda. waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo maanta tegey gobolka hiiraan. shalayna waxaan la kulannay inagoo oo maaragtay xildhibaano reer hiiraana ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo aan kula kulannay magaalada muqdisho wuxuuna inoo ballan qaaday in dawladdu ay intii karankeeda ay gacan ka geysanayso. sidaa darteed waxaan maaragtay ku dhiirigelinayaa qof kasta ama xildhibaan kasta ama qof kastoo siyaasi oo gobolkan ka soo jeeda inuu yimaado. waxaa kalood maqli doontaan jubbaland oo sheegtay inay u diyaargarowday ka qaybgalka howlgallada ka dhanka al-shabaab. barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta oo arbaco ah gaadhay magaalada adis ababa ee caasimadda dalka etoobiya, halkaasi oo uu ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed. waa safarkii ugu horreeyey ee rasmi ah ee uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tego dalka etoobiya tan iyo intii dib loo soo doortay. ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed ayaa kadib markii uu garoonka kusoo dhoweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu bartiisa twitter-ka ku qoray in etoobiya ay si diiran usoo dhoweyneyso socdaalka shaqo ee labada maalmood ah ee madaxweynuhu dalkaasi ku joogo. safarka madaxweynaha soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli ay dagaalo ka dhanaa maleeshiyada al-shabaab ay ka socdaan gobolada dhexe ee soomaaliya, iyada oo magaalooyinka iyo degmooyinka qaar laga saaray kooxda al-shabaab. dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed ibn salmaan ayaa loo magacaabay ra-iisul wasaare, arrintaasi oo lagu dhawaaqay fiidnimadii salaasadii ee xalay. boqorka sacuudiga ayaa isagu inta badan haya xilka ra-iisul wasaaraha. maxamed bin salmaan ayaa loo arkaa inuu yahay hogaamiyaha dhabta ah ee boqortooyada dhowrkii sano ee u dambeeyey, waxaana uu soo qabtay xilka ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo weliba xilka wasiirka gaashaandhigga. maxamed bin salmaan ayaa waxaa dalka uu u horseeday isbedel bulsho iyo mid dhaqan iyo mid dhaqaale, balse waxa uu sidoo kale hogaamiye u ka yahay ololaha laga bartilmaameedsanayo dadka mucaaradka ah. xilka wasiirka gaashaandhigga ayaa lagu wareejiyey walaalkiisa ka yar khaalid ibn salmaan oo horey u ahaa wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga. sida lagu sheegay wareegto uu soo saaray boqor salmaan oo ay daabacday wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee sacuudiga, wasiiro madax ka ah wasaarado kala duwan oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha, arrimaha dibadda iyo tamarta ayaa xilalkoodii iyagu sii haya. 4 afti oo ka dhacday dhulka uu ruushku ka taliyo ee Ukraine ayaa lasoo gabagabeeyey. natiijada aftidan ayaa lagu sheegay in ay u codeeyeen dadku in ay ku biiraan ruushka. saraakiisha goboladaasi ayaa aaminsan in ay hadda hayaan awood buuxda oo ay ruushka si toosa ugu biirayaan, laakiin xukuumadda Ukraine iyo xulufadeeda ayaa iyagu cambaareeyey codbixinta oo ay ku tilmaameen mid been abuur ah. arbacada maanta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ukraine ayaa ku tilmaantay aftidaasi mid aan waxba taraynin oo aan qiimo lahayn. bayaan ay soo saartay wasaaraddu ayay ku sheegtay in ay sii wadi doonto cadaadiska iyo dadaalka ay ku doonayso inay ku xoreyso dhulka ay qabsadeen ciidamada ruushka. Kiev ayaa ku boorisay saaxiibadeeda caalamiga ah inay cunaqabatayn adag ku soo rogaan ruushka oo ay siiyaan Ukraine gargaar ciidan oo dheeraad ah si ay iskaga caabiyaan weerarka ruushka. sarkaal sare oo ka tirsan Taliban ayaa salaasadii ugu baaqay dowladdiisa ka kooban ragga oo keliya ee ka jirta Afghanistan in ay dib u furto dhammaan dugsiyada sare ee gabdhaha iyadoo aan dib loo dhigin, isagoo sheegay inaanay diinta islaamku xadidin waxbarashada haweenka. sheekh maxamed cabaas stanikazi ayaa oo ah ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Taliban ayaa baaq naadir ah u gudbiyey shacabka isagoo khudbad ka jeediyey telefishinka isagoo kusugnaa markaasi kulan ay isugu yimaadeen saraakiisha sare ee Taliban iyo hogaamiyaasha magaalada caasimadda ah ee Kabul. tan iyo markii ay xukunka la wareegeen in ka badan sanad ka hor, Taliban ayaa ka mamnuucday gabdhaha marka ay dhammeeyaan fasalka 6 in ay ku soo laabtaan iskuullada, iyagoo ku tilmaamay tallaabadan mid ku salaysan mabaadi'da diinta. Taliban ayaa iyagu dowladooda ugu yeedha magaca imaarada islaamiga ee Afghanistan. qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in mamnuucidda waxbarashada ay ka hor istaagtay ku dhowaad 1 milyan oo gabdho ah in ay iska diiwaan geliyaan dugsiyada sare ee dalka Afghanistan.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. sidii aad wararkaba ku maqlayseen, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta magaalada adis ababa wadahadallo kula yeeshay ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya, labada hogaamiye ayaa muujiyey sida ay uga go-an tahay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya, iyadoo oo mudnaanta la siinayo horumarka iyo xasiloonida gobolka. wadahadalkan ayaa imanaya iyada oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu adis ababa ku joogo safarkii ugu horreeyey ee rasmi ah oo uu madaxweynuhu ku tego dalka etoobiya tan iyo intii dib loo soo doortay 15 bishii May. haddaba booqashada madaxweynaha federaalk soomaaliya ayay falastiin axmed iimaan waxay ka wareysatay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya cali maxamed cumar cali balcad. markii la doortay madaxweyne xasan sheekh qofkii u horeeyey soo waca wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha dalkan etoobiya. qofkii u horeeyo martiqaadan wuxuu ahaa ra-isul wasaaraha dalkan etoobiya. marka madaxweynaha isagoo ka jawaabaya martiqaadkaas iyuu maanta booqasho ku yimid magaalada adis ababa, halkaas oo si mataqaana sharaf leh oo weyn mataqaana loogu soo dhaweeyey. ujeedada kulankiisana waxay tahay sidii loo hagaajin lahaa xiriirka ka dhexeeya labada dal ee dariska ah ee walaalaha ah. ay tahay in iska kaashadaan waxyaabo badan oo mataqaana quseeya dhinaca amniga, quseeya dhinaca dhaqaalaha, horumarka. marka guud ahaan booqashadu waxay la xiriirtaa sidii loo hagaajin lahaa xiriirka labada dal. waxaa jirta in sida aad sheegtay martiqaadkii ugu horreeyay uu ka helay etoobiya, laakiin dhowr wadan oo kale uu ka horumariyey, taasi oo u muuqata inay tahay sababo waxoogaa madmadow xiriirka labada dhinac soo kala dhexgelisay, keentay in warbaahinta dowladda warbixina ay sameeyaan, dowladdu kadib ay beeniso, dadku laftirkooda shaki badan ay ka muujiyaan. maxaa hadda idiin muuqanaya kadib kulankiini? waa sidee xiriirka labada dhinac? marka martiqaad laguu fidiyey badanaa martiqaadku waa martiqaad furan oo u baahan in laga wada hadlo xilliga ku habboon yahay. madaxweynaha wadamo fara badan ayaa martiqaad u fidiyey. marka hadba sida ay ugu kala habboonaayeen waqtiyada ay kasoo kala jawaabeen yuu madaxweynuhu u kala booqday. oo wadamada ugu horreeya wuxuu ahaa waddanka imaaraadka iyo turkiga, kadibna dalka eritrea oo ay naga dhexaysay mataqaana arrimo dhalinyaro soomaaliyeed oo halkaas ciidan ahaan u jooga, oo madaxweynuhuna aad mataqaana arrintaas uu danaynayay yaa ku xigay. kadibna dalka jabuuti waan jecleen inaa mar hore inuu madaxweyne booqasho ku yimaado dalka etoobiya, laakiin duruufo kala duwan oo jiray awgeed yaa suurtageli weysay in xilligan xilli ka horeeyey ay doorashada dhacdo. waan dareemayaa in siyaabo kala duwan loo fasiray, laakiin waxaasoo dhan waxaa ka jawaabaya soo dhoweyntii maanta madaxweynaha lagu soo dhoweeyey oo ahayd tii ugu heersaraysay oo loo riday mataqaana madaafiicdii loo ridi jiray madaxda maga yimaadaan, oo prime ministerku ugu tegay mataqaana airport kusoo dhoweeyey. iyo dee barnaamijka hadda degsan oo ah barnaamij aad u culus oo yaa muujinaya inaanay wax madmadowa aanay jirin haba yaraatee. marka ilaa jimcaha ayuu madaxweynuhu joogi doonaa sida la sheegay adis ababa. maxay ka wada hadli doonaan labada dhinac? labada dal oo dariska ah waxyaabo badan baa ka dhexeeya. dabcan labada dal waa laba dal oo daris ah, dee isma dooran, ilaa baa daris ka dhigay. marka inay wada noolaadaan ay danahooda gaarka ka wada hadlaan waa wax waajib ku ah labada dalba. dabcan saad la socoto dalka iyaga dhibaatooyin waxaa ka jira la xiriira arrimaha argagixisada, qolooyinka nabadiidka. sidoo kale dalkayga waxaa ku sugan ciidamo kala duwan oo wadamo badan oo dariska oo etoobiya ay ka mid tahay ay qayb ka yihiin. waxaad la socotaa in ayaan dhoweyd qolooyinkaasi nabadiidka ay kusoo xadgudbeen dalkan etoobiya. marka guud ahaan arrimaha amniga, iskaashiga dhinaca ciidamada iyo mataqaana iyo sugida amniga oo waxyaabaha ugu muhiimsan. sidoo kale labada dal ganacsi xoogle ayaa ka dhexeeya. soomaaliya waa waddanka koowaad dalka etoobiya wax u dhoofiyo, mana boqolkiiba 12 waxyaabaha etoobiya ay dibadda u dhoofiso waxay u dhoofisaa mataqaana gobolada kala duwan ee soomaaliya. marka sidoo kaleete arday badan oo soomaaliya ayaa wax ku barta waddankan etoobiya. marka waxyaabo badan oo la xiriira arrimaha bulshada, dhaqaalaha, amniga, siyaasadda yaa ka dhexeeya labada dal. waxaana soo bixi doonaa communique arrimahaas ka jawaabaya mataqaana adwilaayira. ha wasiir, marka laga soo taga hadda madaxweynaha safarkiisa uu adis ababa ku joogo, dhinaca kale dalka soomaaliya guud ahaan waxaa ka socdaa gaar ahaan gobolada bartamaha soomaaliya kacdoona ka dhan ah al-shabaab. madaxweynuhu waxa uu ku baaqay dagaal ka dhan ah al-shabaab. dad badanaa walaac ka muujinaya in inkastoo dagaalkaasi lagu dhawaaqay haddana madaxweynihii safaradiisa dibadda hadda ay badan yihiin.
ma laga yaabaa in madaxweynuhu uu muhiimad gaara siiya dagaaladaasi oo safaradan tirada badan ay noqdaan kuwo ama uu soo gaabiyo ama ilaa muddo inta dagaaladaasi ay dhinac uga dhacayaan madaxweynuhu uu dalka joogo? falastiin sidaa sheegtay waa run. madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in shabaabka lala dagaalamo, taas oo abuurtay in shacbigu ay ka jawaabaan oo ay hubka qaataan oo ay la dagaalamaan mataqaanaaye kooxay inta muddada dheer ee dhibaatada ku hayay. dabcan marka dagaal lagu jiro, dagaalku wuxuu u baahan yahay taakulayn fara badan ayuu u baahan yahay oo dhinacyo kala duwan taabanayso. saad la socota maalin dhaweyd waxaa jiray mataqaanaa dhaawacyo badan oo ka yimid goobahaas dagaalada oo dibadda loo qaado lagu soo daaweynayo. dabcan waxyaabahaasna waxay ka yimaadeen booqashadii madaxweynaha oo meelaha ku tegaya. haddana kama marna in madaxweynuhu kaalmo la xiriira arrimahaas dagaalada inuu ka raadinayo mataqaanaa dalka hadda uu jooga iyo kuwa kale uu booqan doonaba maalmaha soo socda. waayo dagaaladu waxay u baahan yihin taakuleen fara badan ayay u baahan yihiin. soomaaliyana keligeed kuma filna marka inay u raadsato mataqaanaa kaalmo la xiriira xagga saadka ciidamada waa aaday muhiim u tahay. ethoopiana waxay kamid tahay wadamada leh warshadaha hubka aad u sameeya. booqashadan kama marna mataqaanaa waxay qayb ka tahay taakulaynta dagaalada socda iyay kaalmo ka geysan kartaa mataqaanaa. marka lama dhihi karo mataqaanaa booqashadu lama xiriirto amba caqabad ayay ku tahay dagaalka socda lama dhihi karo. marka waxaan aaminsanahay in guud ahaan safarada madaxweynuhu dibadaha ka tego dhan ay ku biirinayeen mataqaanaa abaabulkaas dagaalka ee soomaaliya hadda ka socda. waxaa la sheegay madaxweynuhu inuu tegi doono Eritrea. arrintii ciidamada maxaa xalahoo laga gaaray? ma laga yaabaa ciidankaasi in dalka dib loogu soo celiyo maadaama xilli aada loogu baahan yahay hadda lagu jiro? ciidankaas siduu madaxweynuhu hore u sheegay waa la soo celin doonaa. dabcan soo celintoodu waxay u baahan tahay logistics, waxay u baahan tahay kaabayaal kala duwan oo xerooyinkii degi lahaayeen, gaadiidkii ay isticmaali lahaayeen, mataqaanaa ii sheeg qalabkii ku dagaalami lahaayeen. marka waxyaabahaas ayaa hadda wadahadaladoodii iyo raadintoodii ay socotaa. hadduu ilaahay yidhaahdana waqti munaasab ee dhow mataqaanaa ciidankaas waa la soo celin doonaa. aad ayuu mahadsanyiinkaasi waxa uu ahaa wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee soomaaliya cali maxamed cumar cali balcad oo u warameeyey wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan. dhinaca kalena safarka madaxweynaha ayaa kusoo beegmaya xili ay dagaalo ka dhan a maleeshiyada al-shabaab ka socdaan gobolada dhexe ee soomaaliya, iyadoo magaalooyin iyo deegaamo dhowr ah laga xoreeyey al-shabaab. maamul goboleedka jubbaland waxa uu maanta sheegay in ay u diyaargaroobeen ka qaybgalka howlgalladaasi. wariyaha v o eda kismaayo aadan maxamed salaad ayaa diyaargarowga jubbaland waxa uu ka wareystay sareeyo guuto yuusuf xuseen cusmaan oo ah wasiirka wasaaradda amniga ee jubbaland. runtii arrintaas aad baan usoo dhaweyneynaa. innaga ka jubbaland ahaan runtii waa diyaar garownay. runtii waxaan qayb ka nahay dagaalka duufaanta ee soomaaliya ka bilowday ee lagu ciribtirahayo kooxaha argagixisada ah. waxaana rajaynaynaa mar dhow in uu jubbaland oo dhan ka bilowdo, maadaama hadda gobolka gedo ay dhaqdhaqaaq badan hadda ay samaynayaan. laakiin waxaan rajaynaynaa mar dhow in wejiga hadda ay tahay weji ka bedelan insha allah wiigagaan uu isu bedeli doonto yaan aad u rajeynaya. wasiir, waxaa jirtay howlgallo ka socday gobolka gado oo ciidamada dowladda ay fulinayeen. howlgalladaasi maxaad kala socotaa? howlgalladaas waan wada soconnaa. howlgallada ka socda gobolka gado waa howlgallo looga soo horjeedo kooxaha argagixisada ah laguna ciribtirahayo ayadoo la fulinayo baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya. isla mar ahaantaasna ka dowlad goboleed ahaan si dhow baanu la soconnaa arrintaas. waanan maxaan ku idhahdaa soo dhaweynaynaa. waxaan rajaynaynaa inay sii ballaaran doonto howlgalka ka socda jubbaland oo dhan oo hadda ay bilow u yihiin gobolka gedo. waa mahadsantahay. waayahay. inta badan gobollada waxaad moodaa in ay ka bilowdeen dhaqdhaqaaqyo gobolka hiiraan oo kale dagaalaha ka socda oo al-shabaab iyo ciidamada dowladda isaga soo horjeedaan. sidoo kale gobollada dhexe sidaas la mid a. idinku qorshihiinima wuxuu yahay in sidaas oo kale aad howlgallo u qaadaan oo rag macawisli aad diyaarisaan, mise waxaa qorshihiin uu yahay inay ciidamada dowladda oo keliya ay shaqeeyaan ee daraawiishta iyo kuwa xooga dalka? annagu horta runtii waan soo dhaweynayaa dhaqdhaqaaqyada iyo dib u xoreynta ka bilaabatay gobollada dhexe baan aad u soo dhaweynayaa. waana runtii ku ammaanayaa, waana ku taageersanahay.
laakiin annaga ka jubbaland ahaan innagu waxaan rabnaa barnaamijka inagu inuu noqdo 2 qaybood ama 3 qaybood. qaybta koowaad waa howlgalkana waxaa iskale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland ayaa furin doono. waxaan caawimaad ka heli doonaa kuwa midowga Afrika. waa qayb waaye. qaybta labaad waa hogaaminta rasmiga ah oo hogaaminta guurta la yiraahdo oo maaragtay muxuu ahaayay ciidanka hogaaminayso. qaybta saddexaadna waxa weeye waa abaabulka dadweynaha iyo dadka maxaan ku idhaahdaayey wadaniyiinta ee Soomaaliyeed ee jecel in waxa iska dulqaado. taas qaybood ayuu ka koobnaan doonaa. saasaanu ku fulin doonaa. ciddii muwaadin lahoo Soomaali oo qori haysato tiraahdo dagaalka waan ka qayb gelaynaa lagama maanacayo. laakiin qaab taxadir ah oo fiican ayaa loo hogaaminayaa oo maxaan ku idhaahdaayey in ciidamada ama ay ku biiraan ama ciidamada ay ka amar qaataanna. waa tahay barnaamijkanagu noocyadaas ayuu noqon doonaa. waa mahadsanta. waa tahay inta badan waxaa la dhaliilayaa qaabka ay ku howlgaleen macawisleyda iyo ciidanka xoogga dalka ee gobolada dhexe iyo hiiraan. marka maadaama wasiirkii amniga aad tahay ee Jubbaland sidoo kalena arrimaha ciidamada aad wax badan ka taqaan, maxaa talo iyo tusaale soo jeedin lahayd? sideese u aragtaa qaabka ciidamada hadda ay u wada howlgalayaan? aada waa mahadsan tahay. runtii taladu haddee runtii tala ahaan tala Soomaaliyeed baan qabaa. qodobka koowaad waxa weeyo dagaalka iyo hogaaminta ama macawisley ha noqoto ama ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ha noqdeeno ama kuwa dowlad goboleedyada ha noqdeeno in loo daayo hogaaminta xoogga dalka Soomaaliyeed. loo daayo looga dambeeyo isla mar ahaantaasna muxuu ahaayey ayaga wixii taakulaynaha iyo wixii sistemaha iyo wixii lagu tari kara in lagu taro.